مشروعا دبابينتا مع عسريينتا فردوينكا Soomaaliya ujeedadiisu waxa weeye in standardka iyo procedureka caalam ku shaqeeyo looga shaqeysiiyo ama ay ku shaqeeyaan furdooyinka Soomaaliya oo laga hirgeliyo wuxuu kaloo runtii nidaamkan ama mashruucan objectivekiisa kamid ah inuu kor u qaado dakhliga dawladda Soomaaliya guud ahaan iyo dawladda Puntland iyo dawladda Jubbaland oo ah mashruuca dad ka faa'iideysanaya samsadku waa declarationka qofka laga rabay ganacsadaha ama wakiilkiisa inuu alaabtiisa isagu cadeysto waxa ay tahay intay ka kooban tahay meesha ay ka timid si waxa la yahay u fududaato in si tartiibsan loogu canshuuro soo waqti badan ka dhuminin sida oo kale tan waxa la yahay datadaas ay systemka ugu harto oo ay hadhow u fududaato dawladdu inay go'aan ka gaarto markii ay rabto inay ogaado dhaqaalaha wadanka runtii waxa la sameeyay tababaro wax ku ool u ah sidii loo hirgelin lahaa nidaamkan samsadka ama HS code-ka waxa runtii tababarada bixiyay teamkan Co-Water ayagoo ka masuula mashruuca la yiraahdo Creates Project teaman bay soo direen Puntland loo soo diray Garowe iyo Boosaaso waxa lagu qabtay tababaro xamar tababaro ayaa lagu qabtay muddada hadda mashruucan anaga aan Puntland ku soo biirnay waxaad moodaa isbedel weyn inuu runtii ka dhacay dhanka maaragtay capacity-ga shaqaalaha custom operationka laftigayga inaan ganacsadeedii aan interaction la yeelanay ama ganacsadii isdhexgal la galnay waxaas oo dhan runtii mashruuca fududeeyay waan ku amaanayaa cid kasta oo maaragtay mashruucan fan ku bixinaysa marka aad baan ugu faraxsanahay waa arrin weyn oo isbedeshay waxaana hubaa in horumar badan uu ka iman doono mustaqbalka adduunkana aynu la mid noqon doono sida wax loo cashuuro qof isagoo online lacag ku soo diri doono lacagti waraaqda markii ka soo baxo ay wasaaraddu haysato maaliyaddu cashuurtu diyaar si tahay arrintaas waa arrin isbedel weyn ah